adeeray soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leeyahay halkan iga dambaysa diyaaradda halkan kaaga muuqanaysa ee dabka badan uu ka baxayo waxay taalaa garoonka magaalada Sanca ee caasimadda wadanka Yemen. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay garoonkaasi waxaana lagu soo waramayaa in khasaaro uu ka dhashay. Israa'iil waa ay goodinaysaa Xuutiyiintana waxay wacad ku mareen in ay si degdega uga jawaabi doonaan arrintan. markan dagaalku waxa uu dhaxmarayaa Yemen iyo Israa'iil iyadoo Mareykanku uu meesha ka baxay uu leeyahay labada dhinac ee dagaalamaya unbay u taalaayeen inaga wax halkaasi noo yaala ma jiraan. warbaan idiga siinaya wararkii ugu dambeeyay halkaasi iyo duqeymaha ka dhacay. dhinaca kale dawladda Iran waxa ay ku tilmaantay Mareykanka in uusan sanduleyn oo haddii uu rabo in wada hadal laga galo dhinaca nuclearka wada la yaqaano oo sax ah oo diblomaasiyadeed ay soo maraan. Iran waxay leedahay hal loo sheego Washington inaga ma nihin carabta waxa uu doona uu ka qaato lacag fara badan siiya laakiin inaga waxaan nahay dal madax bannaan oo adduunkaasi ku yaala waynu ogol lahay wada hadalka waynu qiraynaa awoodda Mareykanku uu leeyahay laakiin isbedelada waa inuu qayb ka noqdo ayuu leeyahay. waxaa raaci doona barnaamijka intaan wada joogno qodobadan Hindiya oo samaysanaysa diyaarad dagaal oo casri ah kadib markii ay ku fashilantay diyaaradihii Faransiiska uu soo saaray ee Rafale-ka loo yaqaanay. mar kale ayay Hindiya isku diyaarinaysaa haddii diyaaradaheedan ay noqdaan kuwo tayo leh in ay sumcadda ciidamadooda ay soo ceshtaan oo ay dib u weeraraan dalka Pakistan. inta aan wada joogno waxaan eegi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay maanta iyo magaalada Gaza. dadkii ugu bacnaa ugu faraha badnaa ayaa maanta dhintay. daawaca waxa uu noqday Tirabel meelo kala duwan oo Gaza ahna waa la weeraray. Israa'iilna waxay leedahay arrintaasi waxay u muuqataa in xabad joojintaan ay shaqayn dooneen ilaa la haystayaasha la sii daayo. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu leeyahay dawladda Faransiisku markan ma leexleexanayso waxaan rabnaa dawlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo la aqoonsado. reer galbeedku waa inay maqlaan buu leeyahay codka dawladda Faransiiska ka imanaya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan dul istaagayaa saaxiibayaal soo dhawaada si aad macluumaadkaas iyo kuwa kale aad heshaan ku soo biiray YouTube-kana oo subscribe saara aad baad mahadsantihiin. maanta ilaa iyo 10 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa galay hawada dalka Yemen. waxay weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca iyagoo ka jawaabayay duqeymihii maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka sameynayeen diyaaradaha dagaalka ee aan ilaahdey gantaalaha ay tuurayeen kooxda Xuutiyiinta. garoonka weyn ee Ben Gurion iyo dekedda Haifa ayaa dhaqdhaqaaqeeda in muddo istaagay. Israa'iilna waxay ku qasaartay halkaasi lacago malaayiin dollar sida ay ku warameenba shirkadaha waaweyn ee dhaqaalaha adduunka ka faalooda uguna horeeya wargeyska la yiraahdo Bloomberg. haddaba war ka soo baxay Al Jazeera oo arrintaasi looga hadlay ayaa lagu yiri warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ka badan 10 diyaaradood ay ka qayb qaateen duqeymihii lagu beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sanca. wararka waxay sidoo kale leeyihiin wasiirka difaaca Israel Katz ayaa waxa uu sheegay in ciidamada cirka ee wadankaasi Israa'iil sidoo isaga leeyahay ay duqeeyeen garoonka diyaaradaha Sanca isla markaana ay burburiyeen diyaarad weyn oo halkaasi taalay oo ay kooxda Xuutiyiinta lahaayeen buu yiri. diyaaradaasi ayaa loo adeegsan jiray sida uu qeexaba ninkan Israa'iil u hadlay wasiirka gaashaandhigga ah in ciidamada Israa'iil lagu weerarayo lagu soo qaado laakiin su'aal baa taagan oo ma jireen ciidamo Yemen ka yimid oo Israa'iil weeraray laakiin waxa jiray inta la og yahay diyaarado isqarxiya oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalo laga tuuray Yemen. laakiin isaga waxa uu leeyahay diyaaradahan ciidamo ayaa lagu soo qaaday ciidamadaasna waxay weerarayeen Israa'iil. telefishinka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in ka badan buu yiri 10 diyaaradood ay ka qayb qaateen weerarka lagu qaaday Sanca. dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa waxay weerar ku qaadeen buu yiri garoonka la bartilmaameedsaday oo ay leeyihiin Xuutiyiinta kuwaas oo ay sheegeen in ay isticmaalayeen in lagu qaado baaliire diyaaradda halkaasi lagu qarxiyay duulimaadyo dhinaca militariga ah. militariga Israa'iil waxay sidoo kale sheegeen inay doonayaan inay bartilmaameedsadaan
cid kasta oo qatar ku ah bay yiraahdeen Israel. waxay sidoo kale hadalkeeda ku dareen in kooxdan Xuutiga ay u yihiin agent ama dhinac kale oo la shaqeeya dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa laga soo xigtay waxaanu dhaqmaynaa si cad cid kasta oo na weerarta waan u jawaabi doonaa cid aan na fahmin buu yiri xooggeena ayaa wax ku fahansiin doonaa oo hadda kadib ma jiri doonto cid aynu bari doono oo aan war ka dhageysan doono. inta markii laga soo tago janaalka kooxda Xuutiga isticmaalaan ee Al-Masira la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in weeraradu ay ahaayeen kuwa dhacay. warbaahinta Xuutiga ayaa sheegtay in diyaaradaha Israel ay fuliyeen 4 weerar oo lagu bartilmaameedsaday garoonka iyo diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Yemen Airways. meeshii la hay diyaarad military waaye Yemen waxay leeyihiin waa diyaarad rayid ah oo duulimaadka rayidka loo adeegsado shirkadda duulimaadka Yemenna ay leedahay. marayaha garoonka Sanca ninka la yiraahdo Khalid Al-Saif ayaa sheegay in Israel ay burburisay diyaaradii ugu dambeysay ee shirkadda Yemen Airways ka shaqeynaysa Sanca. diyaaradaasi Yemen Airways hawada ayay ka baxday wixii maanta ka dambeeya waxaana ay u ekaanaysaa meeshii ay martay Somali Airline oo kale wala xasuusanaya. weerarka maanta lagu beegsaday baa la yiri diyaaradda Yemen Airways ee nooca Airbus 320 oo ka soo duushay garoonka Queen Alia ee Jordan ayaa keentay baa la yiri in shirkaddu lumiso diyaarado ay ka mid tahay nooca Airbus iyadoo haatan kaliya ay u harsan yihiin ilaa 3 diyaaradood oo diyaaradaasi qarka u saaran tahay inay meesha ka sii baxayso. diyaaradaasi ma hatii u dambeysay laakiin 3 baa u harsan iyana awood badan ma laha sida xogta ay qorayaan warbaahintu ay tilmaamayso. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku sugan dalka Indonesia ayaa maanta hadal wadnaha joojiyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu jeediyay. waxa uu leeyahay dowladda Faransiiska wax badan ayay xeerin jirtay laakiin wixii maanta ka dambeeya Faransiisku ma aqbali doono in Israelna waa aqoonsado iyadoo aan jirin baa la yiri dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo bariga dhexe ka dhisanta halka laba dowladood ayaynu aqbalaynaa uu yiri. wadamada reer galbeedkuna waa inay fahmaan rabitaanka Paris ee ku aadan xuquuq raadinta shacabka Falastiiniyiinta xaq ay u leeyihiin ayuu yiri. taasi oo foolxumada ka dhacaysa Gaza aynu fiirsan karin sida uu ka sheegay dalkaasi Indonesia. madaxweynaha cusub ee wadanka Indonesia ayaa qudhiisa sheegay in ay rabaan in Israel ay la sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed oo sax ah laakiin waa haddii Israel ay taabageliso ay aqbasho dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo si sax ah halkaasi uga shaqeysa. laakiin tani waxay muujinaysaa iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso oo dhibaatooyin waaweyn oo bini'aadanimo ay ka dhacayaan gobolkaasi. haddii aan fiiriyo markaa dhinaca Tehran gobolka bariga dhexe maanta waa dagaal iyo cabsi. dowladda Iran waxa ay markii ugu horeysay luuqad adag oo lagu tilmaami karo luuqad gobonnimo ay kula hadashay dalka Mareykanka. waxay leedahay Tehran wararka la xiriira in mowqifkeena bacriminta uraniumka aan meesha ka saarnay waa warar aan jirin oo la dhoodhoobay laakiin Mareykanku haddii uu rabo in wada hadalka labada dhinac ay gaareen uu guuleysto waa inuu ka shaqeeyo in Iran loola macaamilo sida dal madax bannaan oo kale oo qorshowna uusan noqon carabta inta loo tago santuuqyada iska furayso oo kale Iran sidaas maaha ay leedahay. dowladda Iran ayaa mar kale ku celisay in aysan wax tanaasul ah sameyn oo ay xaq u leedahay in ay shirkadda uraniumka gudaha dalkeeda ay bacrimiso iyadoo sheegtay inay taasi u tahay ujeedooyin nabadeed oo aysan ahayn kuwa colaadeed. afayeenka wasaaradda amuraha dibadda Iran ninka lagu magacaabo Ismaaciil Baqaayi ayaa shir jireed ku qabtay Tehran maanta oo Arbaco ah waxaana uu yiri wadankaygu waa mid madax bannaan sidaa darteed ma aqbali doono ihaano iyo in la bahdilo. waa mabda asaasi ah ayuu yiri waxa meesha yaala. wuxuu carabka ku adkeeyay inay sii wadi doonaan tiknoolajiyada shiidida iyo waliba kor u qaadida uraniumka ay qayb ka tahay
warshadaha nuclear-ka ee dalkaasi kana mid ah buu yidhi mabaadi'da asaasiga ah ee dowladda iiraan isla markaana aan wax tanaasula iyo gorgortan aqbali karin. oo uu sii hadlay waxa uu intaa raaciyay inuusan wax tala ah ama ka hor imaanaynin ama xaqiiqada xaqaasi aysan ahayn iiraan mid ay aqbali karayso oo xaqiiqadeeda la dabamarinayo sida ay sheegeen ilo wargal ah oo maxalli ah oo ku sugan magaaladaasi Dahraan ee caasimadda jamhuuriyadda Iiraan. kaliya laba qodob ayaa la filayaa wada hadalka marka lixaad galaya ee soo socda inay miiska la soo saaro. afayeenka ayaa si cad u sheegay baa la yidhi kaliya laba arrimood oo ay ka mid yihiin waxa miiska wada hadalka saaran inay aqbali doonaan Mareykanka iyo Iiraan. arrintaasi oo ah nuclear-ka iyo qaadista cunaqabataynta. wuxuu carabka ku adkeeyay in aysan wax arrin ah aysan kala tashan doonin cid kale iyadoo aan cunaqabataynta laga qaadin, sidaa daraaddeedna aan la garan baa la yidhi xuquuqda hubka nuclear-ka ay samaysanayaan inuu yahay mid nabadeed oo uusan ahayn mid dagaal. iiraan wararku waxay tilmaamayaan inay ogolaatay kormeerayaasha hay-adda qaramada midoobe ee IAEA loo yaqaano in ay heshiis la gasho isla markaana ay kormeeraan. telefishinka Al-Jazeera arrintaasi wax ka qoray ayaan dul marayaa. wuxuu leeyahay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee Iiraan Maxamed Islaam ayaa sheegay in haddii wada hadallada lagu guuleysto dalka uu ogolaan doono in hay-adda IAEA ee qaramada midoobay ay u dirto kormeerayaal Mareykan ah si ay u baaraan goobaha nuclear-ka Iiraan. albaabkii ayay isku furayaan markaan. haddaba hadallada marka la eego ayaa imaanaya baa la yidhi xilli la filayo in wareegga cusub ee wada hadallada uu dhowaan bilaabmo kadib markii 5 wareeg oo horey oo la soo bilaabay 12kii Abriil ay noqdeen kuwa aan wax is-afgarada laga gaarin. si kastaba ha ahaatee toddobaadyada la soo dhaafay waxaa jiray hadallo kulul oo dhinacyadu ay isku jeedinayeen, laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu aqbalayay in wada hadalladu ay u ekaanayaan kuwa hadda xal rasmiya laga gaari karo oo rajo ayuu dhinaciisa muujinayaa marna waa hanjabayaa. Hindiya waxa ay markan leedahay haddii la igu hoday diyaaradihii Faransiiska uu sameeyay Rafale adduunkana uu igu maadsaday hadda aniga ayaa diyaarado samaysanaya. wasiirka gaashaandhigga dalka Hindiya ayaa talaadadii ansixiyay baa la yidhi barnaamij lagu horumarinayo diyaarad dagaal oo horudhac ah oo lagu magacaabo prototype, taas oo dadaal kale lagu xoojinayo wax soo saarka hubka gudaha dalka Hindiya iyadoo dhowaan dagaal la gashay baa la yidhi dowladda Pakistan oo ay ku fashilantay. Hindiya oo ka mid ah dalalka ugu badan ee hubka dunida iibsada, dowlad iibsada ah ayay ahayd mogtahay iyada wax soo saarkeeda diyaaradaha iyo awood ma lahayn, laakiin hadda waxay leedahay waxaan rabaa inaan hub iibsado maadaama aan hub samaysto maadaama nuclear baan hore u samaystay. wasaaradda difaaca ayaa sheegtay baa la yidhi in wasiirka gaashaandhiggu ansixiyay diyaaradda cusub ee ah nooca horumarsan ee tiknoolajiyada la shaqeysa oo ah diyaarad dagaal oo jiilka 5aad ka tirsan. wasaaraddu waxay intaa ku tilmaanteen arrintaas ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca gudaha dalka Hindiya. ninkan hub samaysan isaga ayaa isbedelaya. Hindiya waxa ay sameynaysaa isbedel istiraatiijiyadeed oo ballaaran. wargeyska waxa uu leeyahay The Defense Post oo arrimaha militariga ka faallooda sida uu sheegay macadka caalamiga ah ee Sibri ee Hindiya waxay mas'uul ka ahayd ku dhawaad 10% dhammaan iibsashada hubka dunida sanadkii 2009 ilaa 2023 10% hubka adduunka la soo saara Hindiya iibsanaysay. Hindiya ayaa ah dalka ugu badan ee caalamka waxay kor u qaaday xiriirka dhanka difaaca oo ay la gashay dowladaha reer galbeedka oo ay ku jirto isbahaysiga Quad oo ay ku jiraan baa la yidhi dalalka Japan, Australia iyo Mareykanka iyadoo si tartiib u adeegsanaysa ku tiirsanaanta ama uga baxaysa baa la yidhi ama uga leexanaysa ku tiirsanaanta hubka Ruushka. bishii Abriil Hindiya waxay heshiis balaayiin dollar ku kacaya la gashay dowladda Faransiiska gaar ahaan shirkadeeda wax soo saarka iyadoo soo iibsatay ama doonaysa inay iibsatay 26 diyaaradood oo nooca Rafale loo yaqaano, laakiin waxaa dhacay 36 saacadood ka yar dagaal ay kula jirtay dowladdaasi Pakistan ayaa ilaa iyo 3 diyaaradood looga soo riday.
maalmihii ugu dambeysay Hindiya waxay aad ugu dadaalaysay inay iibsato maraakiib iyo waliba diyaarado dagaal iyadoo doonaysa inay fashilkii ku dhacay ay meel iska saarto. aan ku keeno markan magaalada Gaza 28 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu soo waramayaa maanta oo kaliya in la dilay halka 179 kalena la dhaawacay. dadkan aad ay u baayaan kadib markii ciidamada Israa'iil ay duqeymo kala duwan ka sameeyeen meelo ka tirsan Gaza laga soo bilaabo oogii hore oo maanta Arbaca ah. dagaalkan ayaa lagu tilmaamay mid lagu tilmaamayo isir ka saarid meesha ah oo dadkaasi ay gudaha meesha ka baxayaan. gaashaysiinta ayaa arintaasi u sii dheer. meelaha ugu badan ee weerarku uu ka dhacay ayaa ah Gaza gudaheeda, si gaar ah halka loo yaqaan bariga Khan Yunis sida ay ku waramayaan dadka deegaanka. meelaha sidoo kale la weeraro waxaa ka mid ah halka loo yaqaan Qaraara iyo waliba sidoo kale Faqaari iyo Cabistaan iyo halka loo yaqaano Qiiraan iyo Rashwan oo ku taala bariga Khan Yunis. akhyaarteena la socota ay tabinta qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. macluumaad kale ayaa noo soo socda.